kula socoteen waxaa xiisad weyn kiciyey hadal uu dhowaan jeediyey Faysal Cali Waraabe. hadalkaasi oo uu ku sheegay arday reer Puntland ah oo wax ka barata jaamacadda Amuud ee magaalada Boorame in ay qayb ka yihiin cadowga. kulanti wacan wanaagsan dadka daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. halkani waa stuudiyadeena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. daawadayaal sida aad wararkaba kula socoteen waxaa xiisad weyn kiciyey hadal uu dhowaan jeediyey Faysal Cali Waraabe. hadalkaasi oo uu ku sheegay arday reer Puntland ah oo wax ka barata jaamacadda Amuud ee magaalada Boorame in ay qayb ka yihiin cadowga Somaliland oo duulaan ku ah waa sida uu hadalka u dhigay xataa dadka reer Boorame laftooda. hadalkaasi oo turjumaadiisa ay noqotay in la bartilmaameedsado ardaydaasi oo tiradooda lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 200 ilaa 500 oo arday. arrintaasi ayaa haddaba keentay cabsi xoog leh oo soo food saartay ardaydii wax ka baranaysay jaamacadda Amuud ee magaalada Boorame. ardaydaasi oo durba kuwii u horeeyay ay u guriye noqdeen dhulkoodii, qaar kalena ay markaasi cag keliya ku taagan yihiin. barnaamijkan ayaa haddaba waxa aan ku eegayaa saameynta hadalkaasi uu ku yeelan karo colaadii u dhaxaysay Somaliland iyo Puntland ee loogu marmarsoonayay dagaalka Tukaraq. marka hore daawadayaal aan idinku soo dhaweeyo qaybo ka mid ah hadaladii uu arrintaasi kaga hadlay Faysal Cali Waraabe. daawasho wanaagsan. halka daran ardayda kale wax jaamacadda Amuud ku jirta 200 way ka badan ilaa 500 qof ee deegaanka ka soo jeeda. reeraha degan Boorame ee deegaankaas ka jira way ka badan yihiin malaha inaga reer Hargeysa Boorame ka degan. wada arkaysan marka taas waxaan tusiyaa qodob reer awdal cadaawadu inaanay ku koobnaan cid qoray inuu wada koobnaan reer Somaliland. tilmaanta ardayda reer Puntland ee wax ka barata jaamacadda Amuud ee uu farta ku fiiqay Faysal Cali Waraabe waxay noqonaysaa bartilmaameed ku socda in ardaydaasi reer Boorame ay waxyeeleeyaan amaba ay dilaan. hadalka Faysal Cali Waraabe waxaa ka muuqda isir iyo Soomaali nacayb xoog leh oo isaga calooshiisa ka dhex guuxaya. waxa uu ahaa hadal fidno wada ah oo uu dhex dhigayay markaasi ummadda walaalaha ee Somaliland iyo Puntland. waxa uu iclaamiyey Faysal Cali Waraabe in Boorame lagu dili karo ilaa 500 oo arday oo ka soo jeeda Puntland, taasi oo noqonaysa mid taariikhda ku cusub oo islaamnimo iyo dhaqan Soomaalinimo intaba ka fog. daawadayaal waxaa jirtay sheeko ku saabsan nin waalan oo ku noolaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer. ninkaasi oo la oran jiray Hooraye waxa uu dili jiray riyaha. markii la weydiiyey sababta uu riyaha u dilo ayaa waxa uu ku sheegay oo uu yidhi bal u fiirsada indhaha riyuhu waxay u egyihiin indhaha gaalada. sida ninkaasi waxaa haatan ka dhigan Faysal Cali Waraabe oo ardayda jaamacadda Amuud ee ka soo jeeda Puntland u arka amaba leh ardaydaasi indhahoodu waxa ay u egyihiin kuwa Puntland. balyana aan idin daawodsiiyo jawaabta salaadiinta reer Boorame iyo shacabkoodu ay ka muujiyeen markii ay dhageysteen amaba ay daawadeen hadallada Faysal Cali Waraabe. reerka iyagana halkan iyona waxa weey yani reerkan ogaal col balinaya bulay wixii tobigu ka hadlayay Somaliland ahayd ilaalinteeda ahaydba halka uu soo dhaafay Faysal uu socday Puntland buu fariin u diray uu leeyahay halkan badho boqolaal baa jooga hadda halkan wax ka samaysan macnu saas u dhacay daamta ka imaado dadka la carab dhabay ee halkan maanta ka hadlayna jooga ama arday jaamacad ku jira ama dad si kale u degan ahaadaan halka aniga ka hadlay midna quseeyo ma mid adagta u taagtaan maaha. wasaad u deganeedeen weey, wasaad u doorateen weey, ama Boorama deganaada ama Hargeysa deganaada ama Berbera deganaada meesha doonta deganaada. hadalkaasi hadal waxa weeyaan ka baxsan nidaamka buuha hadal in quseeyana maaha. waxaan nii sheegaynaa hadalka maanta noo kalifay dareenka uu ni geliyay baan inaga saarayna. waan noognayn waxba ka dhacaynin
magaalo kastoo Soomaaliya waxba kama dhacayaan wax qudin qusaya ma shacbi baa tihiin daniina aad u degan tihiin dalkiina aad degan tihiin waxa weeyaan arinta ayada arin maaha haddii uu ku hadlay afka dalkan waxaan leenahay arintaasi arin lagu raacsan yahay meeshay doontaba ha joogtee maaha waanu ka xunnahay ma ogolin waxa weeyaan arinta ayadaana Faysal waxaan leenahay debdis baa la dhahaa horta markay debdis baan ku leenahay arinta dib u dhig وهجاج هذا الله فيصل على الورابي وحد بس سوين ودفاعي سلطان كجود سومالان محمد عبد القادر كنت المعمي فيصل نين نبضون وكان سلطان كا أو أرنتاسي كهذلي هذا اللي فيصل بايدي عبدينتي سنوكينا يدلق عذني ديك ولكن دتك بين أبوك يا فرادة مثلا ديناتي لديك حشوضة على دينين ملعب قامي فقار وركيدي عدينتي صار لي ذكرها ريد او ده داتين الرنتاس قلتوا نو قدم بغير شيء ديو يعني ما كانت سياسيين تي فيصل وكل كمز على الرنتاس ذكرها هذا مويلو إلا أي صاعد يسد انتي محمد عبد القادر أي هذا الكيس وح مغضى مد قبيلة أي كل هانتهاي أو كل دفاعيون لنا قبيلة سببتنا حويه فيصل وأن شيء إن وجدد هذا الكيس أنا يصير هين ضد أي سكر أترجمين أما با أن كان قانون هذا الكي أهرويري وحكوا موجن يتعسي حكومة السومالان وأن عندها يدنا حويراته كهدلين أما با أن عندنا كرهالجين سلطان محمد عبد القادر لفتيسة أي هذا الذي يسوع أي إسكهوري مادان تصالحان هذا كهر وحقوا سلطانكو وشاقي إن حكومة السومالان وكو إيدي إن أي علاد الأفوين يدو هورنيسو أو أي مركزي بيل لشرتو أما با أي هوب سينيسو لبضا بيلود يكون دقالمي الأفوين بيل كاملة مالين كدب سلطانكو وحقوا شاقي إن أنا دولد آد كوهين دقال كاسي أو أي مركزي سيدحا أما بقى دحدحات كتهي سلطان محمد عبد القادر waxa uu ka hadlay buug uu qoray wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland guri barwaaqo oo markaasi uu ku afligaadeeyay hablaha beesha uu suldaanka u yahay Maxamed Cabdi Qaadir waxaana uu suldaanku sheegay in buugaasi aanay wax ay ahi ku qorayn hase yeeshee maalmo kadib ayaa suldaan Maxamed Cabdi Qaadir haddana waxa uu sheegay in hablahaasi loo gafay ayda hanjabaada qabyaalada nacaybka Soomaalinimo ee Faysal Ali Waraabe waxay ahayd mid aanu u aabayeelin oo uu kula dulkufo beelo madaxweynayaal salaadiin culimo ashkhaas iyo waliba haweenka waa kan qaar ka mid ah ayda afligaadada iyo gafafka Faysal Ali Waraabe uu ku hayo ummadda Soomaaliyeed oo aanu isku soo dardarnay محمد سعد بروحي يدي ما جرت هو وريري بي وريري waxa la ilaha ina wax la xukureed haduu guntiga ku galo koomeel buu ka qaniini وريري anaga macawis ku dili doona insha Allah taala hadaan joogsin hablaheeni yar yaraaba looga heesiya xamar kuwa xamar tee yar yarna Facebook ku caaya waa khaayimiin waa dulli waa waxaad dalkoodii dadkoodii u tagay waa inaynu Facebook ka dhignaa fidmo dad uriya oo xumaaday oo inaga xumaaday ka sheeg walaalayaal dalkii oo dhan waxa ka socota warfarmaajo iigay wax la yiraahdo waxa soo dhacay iikaada haddi waxa soo dhacay iikaada Faysal iigay maad maqan tuu protest vote buu helay boogtay oo niman la nacay oo dhul iyo cidba laga dhacay iyo ku xumay isku xumay ayaa horta keentay waa garta laakiin waa nin badweyn ku jira waa nin foreigner Soomaali kale dadka aan xilkeen waxaan bilaa fiisa ku yimaade laakiin nin xil haya oo siyaasi ma kala arkay ku balbala iska dhex socdaan ma hargeysa de waxa weeye nin kristaan oo kale diintii fadhiyo ma ogaan sanadii nin kristaan diin fadhiyo ma diin Soomaali weyn buu fadhiyaa ودولك أنا جوالية، تبغى وين القابة نابوي.
waxaa jirtay in nin wariye ah dhinacana musaacadada ka shaqeeya oo ina coldoon uu muqdisho ka yimid mar alla markuu ka soo dega hargeysa waa la xiray anigu waan toogan lahay aawa dimuqraadinimadii anigu haddaan ahay marka dowladda jecsan tahay muxuu sameeyey isagu muqdisho uu tagay wuxuu ka sheekeeyey wixii dhacay ma ninka farmaajo u heesay haye heesta amaanta u qaaday laakiin aawa dimuqraadiyadii security wixii khatar ku haya waan xirina de kolba waad ogtiino mid NGO yar haysan jiray oo kolba ka dhigan madaxweyne tamiya laga soo qaado ninkan la yidhaaho khayre isaga cidmay dooran wuxuu leeyahay walay doortay Soomaali doorto waayo hilkooda xitaan dooran waa la magacaabay magaca madaxweyne farmaashan insha Allah taala ka wada xiriirina ya dadkii wax xukumi jiray ma ogtahay anoo ninkan awslaa hadiisa ku qaadan meena awska iibi jiray waan isaganu eegina muxuu awood ugu leeyahay kayara magaalada NGO ka shaqeyn jiray Norwegian Refugees and Council ka shaqeyn halkan nala joogay waa daayeer way aan kursi aanu qalmin la saaray waa lagu yaqaanaa madaxda Soomaaliya in mar kastaba gacanta wax siisay qaniinaan waa caado ay yaqaanaan tii bay ku celiyeen muumay kala hadhin dalka Imaaraadka oo ahaa dalka qura ee carbeed ee inoo furay khadka markii dowladdii siyaad bare burburtay ee Soomaali isku qasantay baasaboorka ogolaaday baamisharigeeni furay oo maanta aragtaysa inta baamisharaga joogta dekedeena camiray haddana macaawino ugu daray Soomaaliya in saa loo galana oo dadka iyagoo dowlad ahayn waxaasoo lacaga siiseen waxaasoo tababara siiseen maanta taa idinku abaalgudayna waan ka xunahay lama qaybsano marka waanu shaqalaan mid ka nahay ceebtaasna waa ceeb ku kooban Soomaaliya sidoo kale waxaan sheegay waxaan yiri qof waxba ahayn baynu ka dhignay hero inta yar iska muraaqootay qabla xabxabka in horta laga dhigo hero ma aragtay wali inaan yaro reexamaro inoo ooyso tiri Soomaaliya wala laayo ooyso maxay naga wixii ka dhigay bilaa micna iduguna dhalinyarada bilaa micna joojiya dowladuna waxaan qof bilaa micno oo caqli yar inay wax weyn ka dhigto oo sharfto tamam xarig ma beestaalaan haday xamar jeceshay ha joogto maxay naga soo doonaysaa xasan sheekh dalkeeni waa u qaybiyey inay waxa weyn naga dhigay goboleedka lixaad ee Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliland isku daray wixii guddiga waxaan sameeyay doorasho 22 xubnood ka kooban laba xubnood wixii waa Soomaaliya laba xubnood wixii waa Puntland way ku jiraan Soomaali Sanaag ilaa bal ku dhahay mana askaas ilaahay ku dhahay doonaya dad hagaajiyo xasan sheekh oo aabii talin jiray oo ugu shirin jiray oo si qalala u furay meesha ayaa maanta kale Soomaaliya Sanaag la ilaahay ku dhaartay waxaan talin jiray muku talay waxaan arki jiray baad arka waxaan talin jiray markabka uu keeno ina online sibirka ay isku dili jireen awooyashaana xamaaliya madaxweyne laga dhigay maanta waxa ku hadlay ilaahay ku dhaaray wallahi markabkiina xamaal ku noqon doonto insha Allah ta'ala kana yara meesha qaynayeen kala waxaan audit habar gidir meel ayre وكي كاس كان لا دولة ما هذي يعني دولة هذا قرن معي ما نيك كهلي صوماليا يدي وحنا أنت دورها جودة قرن نور فرح بقى تولها كاس ناد يجا ويا ركوني ما كانوا يسوق قيليسي إتكسروا كشاعن طنط ما كان كاسي أنتوا كتلين بربرة قولي كتلين وارهن مدوجو ولا عرفت لو سمعنا وحيستا صنع جماعة عدالة واحد شراء دولة قلت شيء واحد joogta koonfurta aydaasi daawadayaal iyo gafafkaasi aad daawanayseen ee ka soo yeeriyay Faysal Alwaraabe xilliyadaasi marna suldaanku kama hadlin waa su'aal waxa suldaanku maanta keentay in uu difaaco Faysal Alwaraabe Faysal Alwaraabe oo hadaba suldaanku ku sheegay in uu nabadda qayb ka qaato oo uu yahay nabadoon maxaa ka jira arintaasi aan idin soo gudbiyo sheeko kale oo ka tarjumaysa kaalinta nabadda ee Faysal Alwaraabe daawadayaal waxaa jirtay laba beelood oo dagaalantay in beel ka midii ay abaabushay oo ay qorshaysay in ay diraan 9 nin oo erge ah oo beesha kale fadhi la yeesha oo nabadda kala hadla markii la xulayay xulkii 9 nin ee ergada ah ayaa waxa lagu dooranayay aqoonta kartida iyo markaasi aftahanimada
uu leeyahay qofka ka qaybgelaya 9 nin ee ergada ah. nin nacasa amaba doqona oo la yaqiinay magaaladana caan ka ahaa ayaa codsaday in lagu daro ergada oo uu ka qayb galo nabadda, hase yeeshee waa laga diiday. markii dambe ayuu weydiiyey sababta lagu diidaya waxa ay tahay. waxaa loo sheegay in uu yahay doqon aan hadalka aqoon oo hadduu doono kula ku fikira ergada kale la hor fadhiisanayo cay iyo aflagaado. dabeetana ninkii doqonka lagu tilmaamayey ayaa soo jeediyey hadal macquul noqday. waxa uu yidhi, war bilen ma laga yaabaa in ergada dhinaca kale uu doqon kale ku jiro? anigu kaa ayaan ku aadaa ee ha laygu daro ergada. ninkii ergada madaxda u ahaa ayaa markaasi arrintii ka helay oo kaxeeyey ninkaasi kuna daray ergadii ambabaxaysay. markii haddaba lasoo fadhiistay ee labadii ergo ay ishor fadhiisteen ayaa ergadii beesha kale ninkii watay uu markiiba ku bilaabay wax dhaqanka markaasi ka fog oo ahayd cay iyo aflagaado toosa oo ergadii u timid uu kula duldhacay. intaan cid kale jawaabin ayaa doqonkii markiiba cay dabada u qabtay. halkii ayaa lagu kala kacay oo la isafgaran waayey. ergada kale ayaa rabtay in ergadan cusub ee u timid ee martida u ah ay ka xanaajiso, dabeetana ay iyagu garta isa siiyaan. hase yeeshee ninkaasi doqonka ah ayaa markaasi keenay caydiisii deg deg ahayd in lagu kala kaco oo la kala tago. ninkii watay ama madaxda u ahaa ergada ninka doqonka ku jiray ayaa markaasi hadlay oo ergadiisii la hadlay. waxaana uu yidhi, maanta waxaynu ku baxsannay doqonka ergadeenna ka mid a ereyadiisii, caydiisii, aflagaadadiisii iyo deelqaafkiisii. hase yeeshee sanadka dambe uma baahnin doqon dambe oo ergada inoo taga. waxaynu u baahan nahay nabad, inaynu ku caanamaalno oo labadana beelood ay markaasi nabad iyo wanaag ay ku dhaqmaan. waxaan ku tilmaami karaa ergooyinkii nabadda ee uu ka qayb galay Faysal Cali Waraabe in uu ku jiray ergadaa la yidhi uun ha lagu soo daro ninka odayga ah ee aan ka hadalay ee labada ergo markii ay hor fadhiisteen cayda iyo dalqaafka ku bilaabay. hase yeeshee sanadkani ma aha sanadkii cayda iyo aflagaadada loogu dulqaadanayay ee looga baahnaa Faysal Cali Waraabe. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa isaguna ka aamusay fidnada iyo qabyaaladda uu Faysal ummadda u horseedayo, waxaana dad badani ay u tarjunteen in madaxweynuhu uu raalli ka yahay oo uu la qabo hadalladaasi. madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ahaa nin aad u afgaaban oo qunyar socda ayaa muddo dheer ka aamusnaa gafafka iyo deelqaafka Faysal Cali Waraabe, gafafkaasi oo ku hayo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. hase yeeshee madaxweynuhu waxa uu afka furtay markii uu isaga laftiisa ka xishoon waayey. waa kan madaxweyne Siilaanyo oo markaasi inoo sharaxaya ninka uu yahay Faysal Cali Waraabe, shaqooyinkii uu soo qabtay iyo sida shacabka reer Somaliland ay u arkaan. daawasho wanaagsan. Faysal Cali Waraabe gaar ahaan hadallada bariyaan ka soo yeedhay ka soo burqanayay iyadoo caado u leeyahay inuu badiba marka uu dhibaatooyin dhex galo ee dhex dabaasho ee mas'uuliyadiisa xilkiisa bixi waayo isagoo taariikhdiisa la ogaa, wadanimadiisa la ogaa, wuxuu ufaq ku sameeyay berigii la ogaa, qaranka halganku iska ka galay la ogaa, sidoo u basaasi jiray la ogaa, dhibaatooyinka dadka u geysan yahay inuu maalmo basoo aflagaado iyo cay ummadda ula soo taagay dawladda wax la qaadan kara baa. taariikhda Faysal waxa aad ka heshay ummaddu, taageerooyinkii aad ka heshay ee codka aad kaga heshay ee ku wada dhacday ee aad meel ka gaari weyday ee ummaddu ku diiday ee saka ka qabsatay ee aad qabyaalad ku hadashay ee xumaan ku hadashay ee Hargeysa aan la tiri ee mid walba tiri ee ummaddu kugu diiday uf ku tiri waalid taariikhda halkaad ka gashayna waa la ogaa. maalin walba ninka yara koonfur baan tagaya, halkeena wax ka qabanaya, dalka waan bitray garanaya adigu ahaa. maalin walbana halkaas aad ka hadlaysaa waa inta aflagaadiyo xumaan wada, taana wax laga qaadanaya maaha, wax laga aqbalayana maaha, cid adigu aad sheegayso dambana ma jirto. bal markan aan eegno oo aan wax yar dul istaagno miisaanka uu Faysal Cali Waraabe ku leeyahay Somaliland. tiraba 3 jeer ayuu ku dhacay Faysal Cali Waraabe tartankii doorashada ee madaxtinimo ee Somaliland. su-aashu waxa weeye, maxaa Faysal Cali Waraabe shacabka reer Somaliland ay u dooran waayeen? jawaabta haddaan meel gaaban ka soo qabto waxa ay noqonaysaa shacabka reer Somaliland oo yaqiinsaday
amabase og inaanu faysal mas-uuliyad qaadi karayn. faysal waxa uu ka abaalka dhacay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo xilligii qunsuliyadda soomaalida ee ruushiya uu joogay faysal iyo caruurtiisaba tahriib ku geliyey waddanka finland, halkaasi oo uu faysal qaxooti ka noqday. laakiin xilligan la joogo faysal ninka uu ugu necab yahay somalilan sidaan la soconno waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ahaa ninka abaalka weyn u galay. faysal cali waraabe waxaa kale oo uu ka abaalka dhacay jamaal cali xuseen oo uu markaasi khiyaameeyey muddadii uu ahaa musharaxa xaqa ah ee xisbiga uu ku adeegto ee ucid. faysal waxa uu afkiisa ka qirtay oo uu yidhi hantidii iyo dhaqaalihii jamaal cali xuseen waxaan u cunay xilligaa bakhtiga ayaa xalaal noo ahaa oo xisbigaygu wakhtiga daawaha ayuu ku waday. faysal mas-uuliyad daradiisa waxaa caddayn u ah markii uu gabay tii qoyskiisa oo wiilkiisii oo uu dhalay isagu uu galay isaga oo aan ogeyn kooxda argagixisada ah ee isis amaba daacish loo yaqaano ee ka howlgala syria, hase yeeshee uu ka war helay markii wiilkii halkaa lagu dilay amaba uu ku geeriyooday. dhinaca kalena maamulka puntland ayaa waxaa u hadlay afhayeenka madaxtooyada puntland quraan jecel oo markaasi amray in ardayda reer puntland ee faysal u hanjabay ay halkaasi ka soo baxaan. hadalka quraan jecel ayaa isaguna ahaa hadal aan laga fiirsan oo cabsi iyo argagax ku abuuray ardaydii reer puntland ee wax ka baranaysay dhinaca somalilan. ardayda reer puntland ee somalilan waxbarashada u joogtaa ma aha ciidamo amaba ciidan ka amar qaata oo ka tirsan puntland oo amar ku tegay halkaa ama somalilan amaba amar ku soo baxaya. maaha ardaydaasi arday quraan jecel ama cabdiweli maxamed cali gaas uu ka bixiyo lacagta biilka iyo lacagta jaamacadda ee ay wax ku bartaan, ee waa arday iskood isu maamushay oo u tegay inay halkaasi wax ka bartaan. maxaa haddaba la gudboon daawadayaal ardayda reer puntland ee arrimahaasi argagixisanimadu iyo cabsidu ay la soo diristay? waxaa la gudboon inaanay ardaydu dheg jala qusin hadallada siyaasadaysan ee labada dhinac ka soo baxaya oo ay waxbarashadooda sii wataan. faysal cali waraabena waxaa la gudboon inuu hadalladiisa xakameeyo oo uu nacaybka qabyaaladda iyo cuqdada uu iska saaro isagoo oo aanu ku hoos noqon markaasi dadka birimageydada ah ee ay ugu horeeyaan ardayda uu haatan u soo diray hanjabaadda ah in ay dhici karto in la dilo. barnaamijkeenina daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaya. tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa cali xalaare oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabad gelyo. kulanti wacno wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. halkani waa stuudiyaheena magaalada minneapolis gobolka minnesota ee cariga maraykanka. daawadayaal sida aad wararkaba kula socoteen waxaa xiisad weyn kiciyey hadal uu dhowaan jeediyey faysal cali waraabe. hadalkaasi oo uu ku sheegay arday reer puntland ah oo wax ka barata jaamacadda camuud ee magaalada boorame in ay qeyb ka yihiin cadowga somalilan oo duulaan ku ah, waa sida uu hadalka u dhigay, xataa dadka reer boorame laftooda. hadalkaasi oo turjumaadiisi ay noqotay in la